marka aniga safaran aaday gabadh ayadoo xaamilo aan ka tagay niyo gabadhaas xaamilo ah iyadoo dhawaasho ah xataa adiga markaas bilmiyaas maalmo u harsan tahay aan ka tagay ma fahamta gabadhii saaxiibo markii aan soo laabtay aan waxaan arkay gabadhii oo dhashay cunugna oo meesha jooga ay cunuga qisadan ku wada waa iiday ma soo ma gabadha iyadoo dhashay cunugna oo meesha jooga inta marka waxaan dhahay cunuga aaway noo dhashay cunuga Allah saqiiray tirbeegi saqiir Allah nooga dhigo waxaa murugooday saqiirna waa iska jiray adduunkaana saqiir macnaha lama yaabo moogta waa iska sabray ilaahay ka sabar siiyo ilaahay iska sabar siiyo aan qalbiga ka dhahay waa iska sabray waa iska helay ilaahay sharaf si hadda waa iska helay dhahay boosaaso iska taqaana xilli kuleelkeeda zaa'ida moogta waa marka qaar kuleel zaa'ida iska yimaad ana markaas aniga ma ahayn dadka oo dad jeeb weyn ma ahayn mukeef iyo dad guri mukeefiya dadka badan ugu jira moogta marka anigana markaas xilligaha aan shaqeeyay oo guriga aan joogo bi imrooxad iyo waxa isku rusheeyay ama isku wajahta marka waxa marka balabalo ama iska dhisataani oo meesha mar aan taad ku xirtido guri waxaan deganaa hal qol ah wasaaso ali inta si taqaana guri waxa ugu yaalay qol ah oo ku jiraan oo la kiriyano oo saxan daab loo oo waxa la oodan oo qol ah iyo laba qol iyo mas'uul iyo ajira mugta marka waxaan isdhahaynaa meesha hadii aad balanbala ka dhisatid koorno xilliga aad shaqeeyeen iska hanasto sideetaan iska dhisatid joodariga iska dhisatid xataa marxadaagiisto iska qaboosatid marka waxaan soo qaatay baashan dhulka lagu qodo fargeeto oo dhulkaas dhagax waaye weliba dhagax waxa waaye oo xoog la waaye weliba laakiin aniga saas oo taa waxaan u dhawaay xeebtaan u dhawaay dhulkay waa iska jilcana sawirada soo qaatay marka alwaaxyo meesha yeeleen oo guriga dhinac ka yeeleen aan soo qaatay waxaan rabaa marka dirbiga inaan marku soo xirto inta laba alwaax ku rito aan meesha aan surto balabadii meesha iska leeyahay rabe meesha marka aan saas u qoday waxaan marka saas u qoday iidan fikrada meesha godka ma dheereen macnaha iyadoo sawirada guriga intii godku macnaha ma dheereen oo god waxay oo ahaayay iska gaaban oo iska qodo iskaasiis adiga at least adiga alaqiirkan ee meeshaan qoday meesha markaan qoday waxaan ku arkay lafo bin aadan oo waliba lafihi cunugi iyada dhasha ah waxaan ka rabaa inta badan waxa ka sheekeynayso runtii waa wax aad iyo aad u la yaab badan sidoo kale dadka inay qaataan mararka qaar ay adag tahay dad badan oo waalidiin ah ayaana daawanaya oo qaarkood aanan aaminsanayn in hooyo ay ilmaheeda intay dab saarto ay karsanayso see adiga waxaan ku cadeyn kartaa yani waxa aad aragtay in ilmihii cunugii yaraay oo la karsaday inuu yahay see ku cadeyn kartaa lafaha qaarna waa ceeriin meel ku jiraan isku jiraan oo madaxa ku yiro oo gacan ku jirto ceeriin waa qaar la karshay oo lafa la bisleeyo la kashay aniga hilib ma cuni jirin macnaha ana shaki ku darta hadii lafaha caadi lahay madax inta arkay oo lafaha arki lahaa inta aan leeyahay oo hilib guriga aan ku waalahay ee meesha hilib aniga ma isticmaal jirin badana kalluunkaas aan iska cuni jirin mugta iyo godka waxa ku aragtay godka waxaan ku arkay kooda markaan saas u qodaba horta qoyaan arkay maba dheeraba xilliga ay ku dugtay meesha markaas ayadana ma jooga xaafada oo macnaha oo aan godkaas qodaayo waa ka maqneed waxa xaafada ma joogo magaalada jirta marka balabaladan iska dhisaas dhee waxay markaas saas u qoday aan qodan waxa kan meel hilib oo qaarna uus iyo ahay oo meel lafa iyo oo isku dhaxal labano meesha wada qoyinta kartoona marka kartoona saas ugu dawo kartoonka waa qoyinya saamaga oo fiirshay waa isku dhax marka waxaan dhahay hilib qofta inta hilib ka keentay neef ma qalatay
hilib baqala jirna anaka hilib ma isticmaal jir bataata hilib gurigeen ma wala u kala jirin baanka kalluunkaas bisa cuna jirna hilib kala sheega waaba ku diimi jirnaba kalluunkaas aan keenaa xabad sayno baan soo qaadaa markaan joogo marka waxaan sameeyay marka inta baqreed goob hilib qofta heshay ma una qaatay waxaas aniga qalbigii iska galshay markaan soo sii faagadan madaxa arkaba madax aniga oo diiran oo muddo oo sanki dhib oo muuqdaan waxaan ku dhahay isku dhahay cunugiisa muuqaal waa taqaan saqiira aniga yaabay qisadii yaabay ayaabay waxaan xiiginaas dah cunugaan marka hadana midaan niida asala cunugi macnaha ayada marka hore ay rabto cunuga daal soo duugaan dhaa moogta si tira qabowraha boosasaar soo duugay dhaa moogta marka hore aan weydiiyo inta ana waan weydiiyo marka xanda qoftan waa ku sirtay ay cunug intii ugu duugtay sabaal cuna aniida iska galish cunug baahal intii ugu duugtay baahal cuna qada asii ku sii duugtay markaas hilibkii iyo labada xii gacana arkadana waa sii fiiday hilib la fad bisel arkadana oo aan arko meesha dagu arko oo bisel oo la karshay hilib la bisleeyo aqaana moogta ilaa qofta hilibkii cunugii daacdo hilibkii cunugii karsatabo subhanallah bacdi subhanallah bacdi cunugii ee 9 bilood ee sug caloosh ku soo siday oo ilaahay ka soo gooyay ee intay dhir qaadatay ee dib ka saartay waa qisad ugu yaabka badan adduunka intaan joogay waxaan ka rabaa in hooyo ilmaheedii ay karsato waa wax aan dhici karin haday dhacdana uu qoftaas la dhigi karo waa qof xanuunsan almo wala say ku cadeyn kartaa waxaas inay sax ahaayeen waxaad aragtay